taariikhda islaamka waxaa soo maray hogaamiyaal caan ahaa oo keliya caan ka ahay muslimiinta dhexdooda xataa dadyooga kala yaqaaneen sida reer galbeedka oo kale waxaana ka mid ah hogaamiyaan dhammaantii wada naqaano ee salaaxudiin al ayuubi salaaxudiin caanka ma ahayn oo keliya muslimiinta dhexdooda ee xataa reer galbeedku si fiican ay u yaqaanaan taariikhdiisa muuqaalkiina maanta haddaba waxay kaga hadlaynaa taariikhda almelik annaasir salaaxudiin al ayuubi daawasho wacan salaaxudiin magaciisa dhabta waa yuusuf ibnu ayuub soo kale waxaa loo yaqaanay ibnu muqafar ama almelik annaasir salaaxudiin ayuub wuxuu ku dhashay magaalada tikrit lagu magacaabay ciraaq ku taala sanadii 532 hijriga oo ku beegneyd 1138 miilaadiga waxaanu ka dhashay faamili kurdi ah waxaana lagu tarbiyadeeyey tarbiyad aada u sarreysa sidaan ku arki doono muuqaalkana gudihiisa aabihii hooyadii haddaba siday isku guursadeen waxay ahayd qaab cajiiba waana qiso caana aabihii wuxuu madax ka ahaa magaalada tikrit waxaanu weligiiba odhan jiray waxaa raba inaan guursado gabadh ilaahay ka baqaysa iina dhasho wiil fardafuula oo ilaahay gacantiisa ku furo baytalmaqdis aabihii maalmaha ka mid a isagoo qasriga jooga ayuu gadaal wuxuu ka maqlay gabadh guur loo soo bandhigayo oo guurkii diidan oo leh waxaa rabaa nin ilaahay ka baqaya oo aanu dhalo wiil aan si fiican u tarbiyadeeyo ilaahayna gacantiisa ku furto baytalmaqdis ayuub gabadhaas markuu maqlay erayadeeda aad ay uga helay waxaana usoo bandhigtay guur ugu dambeyntiina way aqbashaa way isguursadaan waxaana u dhasha salaaxudiin al ayuubi qisada hooyadii aabihii isku guursadayna waa taas waa qiso caana haddaba dhalashadii salaaxudiin al ayuubi kadib aabihii hooyadii waxay ku dadaaleen inay si fiican u tarbiyadeeyaan una diyaariyeen hadafkoodii ahaa furashada baytalmaqdis waxaa la sheegay maalin maalmaha ka mid a salaaxudiin ayuubi inuu aabihii guriga si dhaqsa ugu soo laabtay uuna arkay salaaxudiin oo ciyaal la ciyaaraya waddada kula ciyaaraya markaasuu intuu cadhooday salaaxudiin kor u qaaday ayuu dhulka ku tuuray kadib ayuu ku yidhi kuuma dhalin inaad ciyaarto ee waxaan kuu dhalay si aad u furato baytalmaqdis intaas kadib salaaxudiin aabihii wuxuu weydiiyey markaan ku tuuray maxaad u damqan weyday markaasuu salaaxudiin ayuubi ugu jawaabay lagama yaabo inuu tuuryo ka damqado nin ilaahay gacantiisa ku furi doono baytalmaqdis taasi waa qaabka loo tarbiyadeeyey salaaxudiin al ayuubi soo kale wuxuu arday u noqday dhinacaan oo dagaalyahan nuuraddiin maxamed zanki lagu magacaabo ama nuuraddiin zanki oo culammada qaar qabaanba inuu ahaa isagu ninkii waddada usii hagaajiyey salaaxudiin al ayuubi inuu quds furto waxaana saan qaba sheekh taariq suweydaani oo kale muuqaal gooni ah ayaan ka samayn doonaa insha allah nuuraddiin zanki salaaxudiinna wuxuu nuuraddiin zanki ka bartay jihaad jacaylka oo uu nuuraddiin caan ku ahaa haddaba dalka masar waxaa ka telinayay waqtigaas dowlad faatimiyiin lagu magacaabo oo shiica ismaaciiliyiin ahayd oo aada u dhaqan xumado muslimiintii sunniyiinta ahayd ee masar ku noolaana aada u dhibaateeyey haddaba dowladdan faatimiyiinta lagu magacaabo waxaa dhexdeeda ka bilowday khilaaf ay kursiga isku qabsadeen muddo gudaheedana waxaa xukunkii ku kala wareegay madax badan oo shiico ahayd saliibiyiintii quds haystay markay arkeen dowladdan masar ka talinaysay faatimiyiinta khilaafka gudahooda ka jira waxay damaaciyeen inay masar kusoo duulaan ay masar qabsadaanba nuuraddiin zanki oo waqtigaas ka talinayay dhulkan shaam lagu magacaabo markuu maqlay siday saliibiyiintii quds joogay u rabaan inay masar qabsadaan wuxuu diyaariyay ciidan uu madax uga dhigay nin lagu magacaabo asaduddiin shirko waxaana la socday wiil uu adeer u ahaa oo salaaxudiin al ayuubi lagu magacaabo waxaana waqtigaa jiray salaaxudiin 25 sano haddaba saliibiyiintii quds joogay markay arkeen asaduddiin shirko oo soo socdo masar yimid way iska daayeen soo weeraridii masar waxaana iska joogeen bartoodii saasaanu asaduddiin shirku iyo salaaxudiin oo soo socda masar ku soo galeen waxaana masar ka noqday madax asaduddiin shirku waxaana bedelay markuu geeriyooday salaaxudiin al ayuubi haddaba salaaxudiin al ayuubi markuu xilka masar qabtay waxaa ku noolaa dad badan oo isdiidan caqli badnidu ilaahay siiyey waxaasoo dhan uu ka soo gudbay shiicadii masar haysatay faatimiyiinta ahaa ee dhibka badnaa muslimiinta dhibta ku hayna dhammaantood uu ka takhallusay waxaana hoos keenay masar dowladdii baqdaad ka talinaysay ee cabaasiyiinta ahayd isaguna wuxuu ku ekaado keliya inuu waali ka noqdo ama wasiir ka noqdo masar waana sababta shiicadan ismaaciiliinta lagu magacaabo hadda yaraan ku nool ay u necab yihiin salaaxudiin al ayuubi oo ilaa haddana ugu tilmaamaan kharaabudiin al ayuubi magaciisa xataa kharaabudiin ba ugu yeedhaan haddaba waxaa shaam ku geeriyooday suldaankii nuuraddiin zanki salaaxudiin al ayuubina geeridiisa aad ay ugu murugooday dhimashadii nuuraddiin kadib waxaa bilowday in xilkii nuuraddiin la isku dagaalo oo rabshado ka dhex bilowdaan shaam gudaheeda salaaxudiin wuxuu bilaabay inuu shaam dib ugu laabto xukunkii nuuraddiin ka tegina uu isagu qabto
rabshadii ka jira meeshan uu dejiyo muddo 2 sano uu joogay bartaas. Shaam markay kala degtay wuxuu bilaabay inuu mideeyo Shaam iyo Masar oo sidaasna suldaan ugu noqdo dhulkaas oo dhan. haddaba marka xaaladii kala degan dhulkii Shaam iyo Masar, Salaaxudiin wuxuu qabanqaabiyay una diyaariyay ciidan aad u fara badan waxaanu bilaabay inuu furto Bayt al-Maqdis. dagaalada fara badan ayuu la galay Saliibiyiintii waqtigaas Quds haysatay badankoodina uu ka guuleystay, waxaana ugu caansanaa dagaalkii Xatiin lagu magacaabay ee furaha Bayt al-Maqdis. waana dagaalkii muslimiinta wadada u sii xaaday si ay u galaan Bayt al-Maqdis mar kale. sanadii 1187 miilaadiga Salaaxudiin Ayyuub wuxuu goodoomiyay Bayt al-Maqdis, waxaana gudaheeda ku jiray ciidan kooban oo Saliibiyiin oo aan ka hortagi karin Salaaxudiin Ayyuub iyo ciidankiisii. saasana muddo 6 cisho gudaheeda kaliya isku soo dhiibeen dhammaan wixii Bayt al-Maqdis ku jiray oo Salaaxudiin Ayyuub iyo ciidankii muslimiinta aan gudaha u galeen. kadib goodoomintii 6 cisho, Salaaxudiin Ayyuub iyo ciidankiisu waxa ku guuleysteen inay Bayt al-Maqdis soo galaan, waxaana ula dhaqmeen dadkii ku noolaa waqtigaas sidii diinteenu ina farayso. wax dhactooya ma jirin, dhibaato loo geystay ma jirin. dadkii Kristanka ahaa ee ku noolaana kaniisadoodii iyo diintoodii wax walba oo loo ilaaliyay. haddaba kaniisadii weyneed ee Rome ku taalay ayaa mar kale iskugu yeedhay Yurub oo dhan inay Bayt al-Maqdis soo ceshtaan, dagaal weyn oo aad u culusna qaadaan. waxaana ay qaadeen dagaal aad u culus oo lagu magacaabo dagaalkii boqorada, sababtoo boqorada fara badan ayaa kasoo qayb galay. waxaana ka mid ahaa boqorkii Ingiriiska xukuumaya caanka ah ee lagu magacaabay Richard Qalbul Asad. laakiin ciidankaadu fara badan ee Yurub soo ururstay ilaahay markii iyagoo muslimiinta sarag ayaaba jabeen, meelahoodina ku kala noqdeen. xaggaas ayaanu ilaahay muslimiinta guul ku siiyey. waxaana gooriyooday al-Malik al-Nasir Salaaxudiin Ayyuub ilaahay ka raali noqdeen sanadii 589 hijriyada oo ku beegneyd 1193 miilaadiga. waxaanu yidhi intaanu dhiman ka hor haddaan maanta taydii ahaan lahayn ama geeridu imaan lahayn Yurub oo dhan waxaan ka dhigi lahaa qaarad muslimiinta hoos timaada. firaashkiisa ayuu ku geeriyooday ilaahay ka raali noqday Salaaxudiin Ayyuub. waxaana in badan la isku dayay in taariikhdiisa la tashwiihiyo ama la bedelo, sida culamo badan iyo muslimiin badan oo kale la iskugu dayay, laakiin ilaahay markii taariikhdiisu wacaan cid ay ka qarsoomaysana male. Salaaxudiin Ayyuub wuxuu ahaa nin dunida ka zuhdiyey, waxaana la sheegaa markuu geeriyooday ilaahay ka raali noqday in khasnadiisii laga waayay lacag ku filan in lagu kafno. nin duni ka fogaaday ayuu ahaa, waxaanu ahaa nin goob dagaal taagnaa cimrigiisa intii ugu badneed oo jihaad ku jiray. waxaa lagu yaqaanay soo kale jihaad jacaylka, sidii uu ka bartoo kale Nuuraddiin Zaynki macalinkiisii. ilaahay ka raali noqdo Salaaxudiin Ayyuub oo hadaladiisa caanka ah ka mid ahaa, waxaan ka xishoonayaa inaan qoslo iyadoo Bayt al-Maqdis gacan Saliibiyiin ku jirto. muuqaalkana maanta intaasuu nagu ogyahay. waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iiday. fadlan hadduu ku cajabay subscribe saar lana sii wadaaga asxaabtaada. wassalaamu calaykum.